weligaa ma ku fikirtay waxa sabab walwalka? qof kasto wuu walwalaa ama waxa haysto walbahaar balse waa la kala daran yahay oo kaliya. sidoo kale ma isweydiisay sababta ay dadka qaar u qabaan walwal iyo walbahaar xun kuwa kalena ugu fiican yihiin. walbahaarka ama walwalka waa cudur xun oo aad u ballaaran. weli waxaa la baarayaa arrimaha keena inta ay gaarsiisan yihiin, balse waxaa la ogaaday in waxyaabo badan ay keeni karaan cudurkan walbahaarka. waxaa jira sababo kala duwan oo walbahaarka keena iyo qaabab uu qofku ugu dhici karo. dadka qaar marka ay xanuunsadaan ayay ka qaadaan walwal iyo cabsi, kadibna waxaa isbedesha noloshooda. dadka qaarna waxay ka dhaxlaan qof waalidkood ka mid ah. dadka qaarna waxay walbahaar ka qaadaan marka ay murugaysan yihiin ama cidla ay dareemaan. kuwana sabab aan la ogeyn ayaa xanuunkan u keena. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee sababa walwalka? haddaba muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa maxay yihiin arrimaha keena walbahaarka iyo walwalka. xadgudubka jismiga, kufsi, niyad ahaanba wuu u noqon karaa xadgudubka, wuxuuna sababi karaa walbahaar iyo niyad xumo isu bedesha xanuun maskaxeed oo saameeya nolosha qofka. da'da dadka duqeyda ah waxay halis weyn ugu jiraan inay walbahaar iyo walwal ay ku dhacdo. waxyaabaha sababi karana waxaa ka mid ah in qofka da'da ah keligii uu meel ku noolaado ama in uusan haysan cid daryeesha ama dad kale oo caawiya. daawooyinka qaar waxay keeni karaan qofka in walwal iyo walbahaar uu ku dhaco, sida maadada isotretinointa oo fimanka wejiga ka soo baxa loo isticmaalo, iyo sidoo kale maadada corticosteroid. iyo daawooyin kale ayaa sababi kara halista dhanka walbahaarka. sidoo kale walwalka ama walbahaarka inuu qofku ku dhaco waxaa sababi kara colaadaha. cudurka walbahaarka iyo niyad xumada haddii uu qofka aad ugu nugul yahay wuxuu ka qaadi karaa colaadaha ama dagaalka. xitaa mid qoys haddii uu yahay oo khilaaf yar uu dhex maro wuxuu noqonayaa qof walbahaarsan. qofkaa dhintay, murugada ka dhalata qof dhintay, gaar ahaan mid aad loo jecel yahay, waxaa sida dabiiciga ah ka dhasha walbahaar daran. jinsiyadda dumarka waxay laba jibaar kaga halis badan yihiin ragga in walbahaar xun uu ku dhaco. weli lama caddayn sababta isbeddelka hormoonada ee dumarka ay la kulmaan ayaa loo malaynayaa in uu door weyn uu ku leeyahay. hidisidaha dhaxalka ah haddii qoyska ay taariikh u leeyihiin walbahaarka, qof ka tirsan qoyskaasi halis ayuu ugu jiraa. waxaana la aaminsan yahay in dabeecadaha adage ee aan la fahmi karin ay ka mid yihiin walbahaarka. taa micnaheedu wuxuu yahay in dabeecad xun aad waalidka ka dhaxli karto. walbahaarka la kala dhaxlo ee hidisidaha ku samaysan wuxuu badanaa saameeyaa maskaxda. dhacdooyinka waaweyn, xitaa kuwa wanaagsan sida bilaabidda shaqo cusub, jaamacad dhammaynta, ama xitaa haddaad guursanaysid, waxay dadka qaar u keeni karaan walbahaar iyo cabsi. waa marka qofku uu bilaabo inuu ka baqo in shaqada laga ceeriyo, in lacag la'aan ay ku dhacdo, in qoyskii uu ka burburo iyo arrimo kale oo la mid ah. walbahaarka noocan ah ma ahan mid caadi ah oo la falgala nolosha dabiiciga ah. dhibaatooyin shakhsi ah, xaaladaha dhibka shakhsiyadeed ee sida qofka inuu dadka ka dhex baxo, taasoo sabab ay u tahay xanuuno dhanka maskaxda ah, ama in qoyska ay deeriyaan, iyo xitaa in bulshada uu ka dareemo naceeb. waxaa ka dhalan karta walbahaar iyo niyad-jab. cudurrada halista ah mararka qaar walbahaarka wuxuu yimaadaa kadib xanuun halis ah oo muddo dheer qaata, ama xaaladaha kale ee caafimaad daro ee ragga ku dhaca. maandooriyaasha ku dhawaad 30% ee ka mid ah dadka isticmaala daroogada waxay la kulmaan walbahaar aad u xun. sida caadiga ah, qamriga iyo daroogada waxay xitaa qofka si kooban u dhigaan mid walwalsan. ugu dambeyntiina way sii xumaataa xaaladda caafimaad ee maskaxda qofkaasi. fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaan kaa codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagto. haddaad cusub tahayna aad noogu soo biirto ood subscribe noo saarto, gambaleelka aad furato si fariimaha caafimaad ee halkan aan soo dhigno ay mar walba kugu soo dhacaan. aad baad u mahadsan tahay.